marka hore waa idin islaamay walaalaha qaaliga ee ku xiran halkan. waxaan idin leeyahay asalaamu allahi calaykum. maalmahan waa gaar kaa maqnayn, mashquulka ayaa iska batay. waxaan rabaa marka halkan inaan video yar oo videoyada hore ka duwan inaan kusoo gudbiyo. saad ogtihiin Soomaaliya waxaa ka dhashay madaxweyne cusub iyo ra'iisul wasaare cusub iyo baarlamaan cusub. isbedel cusub baa yimid. madaxweynaha cusub wuxuu soo magacaabay wasiirkiisii koowaad ee ra'iisul wasaaraha ee hogaamin lahay xukuumadda. sida caadiga la wada ogyahay, dowladda shaqada ugu badan waxaa qabanaya waa xukuumadda. madaxweynuhu waa howlaha qaar buu qabanaya, laakiin awoodda iyo fulinta waa wasiirada ayaa fulinaya. haddaba si guul loo gaaro, ra'iisul wasaaraha waxaa laga rabaa in uu soo magacaabo wasiiro tayadii leh. wasaaradaha qaar dadka loo dhiibaya ee wasiirada noqonaya waxaa qasaba in wasiirku uu noqdo qofka ee qabana wasaaradda uu qabanayo oo loo dhiibayo inuu shaqadeedii ama aqoonteedii leeyahay. halka wasaaradaha qaar qofkii rabo iska qaban karo, dee qof waduu aqoon leeyahay loo dhiibi karo. laakiin wasaaradaha qaar waa qasab sida caalamka inta badan ka jirto. waxaa kamid ah wasaaradaha ay qasabka tahay in loo dhiibo qof aqoonteedii leh: wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda difaaca dalka. wasaaraddaas waxaa qasaba qof aqoonteedii leh loo dhiibo maadaama ay tahay wasaarad ciidan, ma ahan wasaarad shacab. marka wasaaraddaas qofka loo dhiibaa qasab waa inuu noqdo qof kasoo shaqeeya ciidamada qalabka sida. waa inuu kornal noqdo ama waa inuu jaraal noqdo. sida caadiinka caalamka markaad u fiirsato, dadweynaha oo dhan wasaaradda gaashaandhigga janaal ayaa loo dhiibaa, waayo waa wasaarad ciidan weeye. xitaa wasaaraddaas shaqaalaheeda caalamka inta sideeda u badan waxaa laga dhigaa dad ciidan ah, waayo ma aha wasaarad shacab maaha. marka waxaa laga doonayaa ra'iisul wasaaruhu haddii tayo ciidan la rabo in la helo, in uu ka dhigo wasaaradda gaashaandhigga nin aqoonteedii leh oo weliba nin ciidan kasoo shaqeeya ah. janaal hadduu helo ka dhigo ama korneyl, adiga qof khibrad ciidan leh, maadaama ay wasaaradda dhammeed ee difaaca dalka ay tahay. qof caadi haddii laga dhigo waxaa dhacaya in qofkaas ay isku wareeraan, maadaama ay taliyaashii ka hoosiyey in isaga ka aqoon bataan. qofkii dhammaan wasaaradda maamulayay haddii taliyaashii qaabka u shaqeynaya ciidanka waxyaaba u baahan yahay, waxyaaba laga rabo garan waayo, naftiga waxay noqonaysaa in halkaas uu ka yimaado dhismo la-aan ciidanka. waana mid ugu badan in haysata ama Soomaalida haysata. wasaaradda labaad ee ay muhiimka tahay in qof shaqo aqoonteedii loo dhiibo waa wasaaradda amniga. qofku weliba inta badan caalamka waxaa loo dhiibaa janaal boolis ah, maadaama ay hoos imaanayaan ciidankii booliiska, asluubtii, dambi baaristii, nabad sugidii. ciidamadaas oo dhan maadaama hoos imaanayaan wasaaradda amniga, waxaa qasaba iyadana inta badan caalamka waxaa loo dhiibaa janaalo ama korneylo boolis ah. dee qof amnigii soo maro yaqaano, ka shaqeyn kara oo dambi baaristii qaabka wixii shaqeyn yaqaano, boolisku qaabka amniga si loo shaqeeyo, haddii uu dhaco sidii loo daba tago, haddii wax soo socda la dareemo sidii looga hortago kale. waa in wasiirka yaqaan waxyaabahaas qaarku kala shaqeyn karo, taliyaashii uu amri karo, ogaan karo taliyaha runta ka sheegaya, taliyaha shaqeynaya, taliyaha shaqeynaya. ayadana caalamka inta badan wasaaradda amniga waxaa loo dhiibaa qof amniga in badan kasoo shaqeeya. wasaaradda saddexaad ee qasabka ay tahay in loo dhiibo qof aqoonteeda leh waxaa kamid ah wasaaradda caafimaadka. wasaaradda caafimaadka waxay kamid tahay wasaaradaha ugu awood badan dalka marka la joogo gudihiisa. wasaaradda dadkii oo dhan markii abaar jiraan oo kale cudurro badan baa imaanaya, markii roob daan oo kale cudurro badan baa imaanaya, markii sidoo kale caalamka oo kale cudur hal mar wasaf mar oo caalamka ka yimaado oo kale sida coronavirus oo kale waxaa imaanaya. xilligaas oo kale ayadana waxaa loo baahan yahay oo kale qof wasiir aqoonteeda leh inuu yimaado. marka hadduu qofka wasiirka uusan caafimaadka aqoonba u lahayn oon aqoonin, waxaa dhacaysa cudurrada qaar xitaa inuu asaga xitaa cudurrada qaar inuu xitaa qaabka u shaqeeyaan xilliyada imaanayaan inuu la jaanqaadi waayo. marka wasaaradda caafimaadka qofka loo dhiibaasna waa inuu ahaado qof master caafimaad ah ama PhD meelaha ugu fiican inuu noqdo, weliba caafimaad kasoo shaqeeya khibradeedii leh, si ay yani qofkaas uu u control dalka wax ka dhacay. oo isaga kaliya in wax loo sheegay aysan noqon, laakiin isagu uu ogaado wax kasta information kasta uu sameyn karo, oo xogaal uu sameyn karo, uu noqon karo qof
shaqada kasoo bixi kara caafimaadka. Wax kaliya loo sheegay shan noqon, laakiin isuu ogaan karo cudurkan jira, intuu la egyahay, saameyntiisa ogaan kara waa noqdaa. wasaaradda afraad ee qasabka ay tahay in loo dhiibo qof aqoonteeda kale waxaa ka mid ah wasaaradda beeraha. maadaama beeruhu ay yihiin cilmi la barto, qof kasta kama shaqayn karo. waa in qof beerihii bartay, maadaama beeraha lagu beerayo waxyaabo kala duwan. beeraha maadaama ay u baahan yihiin ayna turkooda qalab badan, soo bixitaankeeda qalab u baahan yihiin, markii soo baxaan ay u baahan yihiin caawinaad intii ay kasoo go-ayso beerihii. waxaas oo dhan waxaa loo baahan yahay qofka ka shaqeynaya inuu yaqaano beerihii. haddaba afartaas wasaaradood waa in dadka aqoonteedii loo dhiiba. wasaarado badan baa jira, laakiin afartaas wasaarado afarta ugu muhiimsan ee qofku ay qasab ay tahay inuu yaqaano shaqadaas loo dhiibayo. laakiin wasaarada kale waxaa jira ee aan muhiim ahayn, qofku inuu aqoon leeyahay kaliya muhiim tahay oo qofku la jaan qaadi karo. dib baan ka sheegi doonaa insha allah, aan kala soo wadaagi doonaa. waa mahadsantihiin. xoogaa waa yaraha rakabsanahay, raali noqdo haddii codkii xoogaa hoose u xayeysan yahay. waana mahadsantihiin. asalaamu calaykum.